warmurtiyeedkii ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sidan u qornaa ujeedo matalaada gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubbaland markii uu arkay guddoonka 16 xildhibaan oo laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado iyo 16 xildhibaan oo iyagana sheeganaya in laga soo doortay degmada Garbaharre ee gobolka Gado markii uu arkay guddoonka golaha shacabka in aanay sharci ahayn in gobolka Gado ay ka soo baxaan 32 xildhibaan markii uu arkay xildhibaanadii lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado in ay habraaca doorashada mariyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal isla markaana ay doorashada qabteen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed markuu arkay guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbaharre ee gobolka Gado in aysan haysan shahaadada guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal isla markaana ay doorashadu qaban guddiga hirgelinta dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland markuu arkay buuqa hareeyay golaha shacabka fadhiyadii kala duwanaa oo ay sabab u ahayd 32 xildhibaan ee gobolka Gado markuu arkay guddoonka golaha shacabka go'aankii uu ka qaatay guddoomiyihii ku meel gaarka ah xildhibaanada ambassador Cabdisalaan Xaaji Aadan Liibaan Dhabancad xildhibaanadii laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado xildhibaanadaasi oo la dhaariyay isla markaana habraacyadooda loo dhameystiray si waafaqsan go'aankii guddoonkii gumeel gaarka ahaa xildhibaan Cabdisalaan Xaaji Aadan Liibaan Dhabancad markuu garwaaqsaday guddoonka iyadoo la raacayo xaqa dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu siinayo muwaadinka Soomaaliga ah in cod matalaad ah ay ku yeeshaan muwaadiniinta gobolka Gado si la mid ah muwaadiniinta kale ee laga soo doortay gobolada dalka haddaba guddoonka golaha shacabka waxay isku raaceen in xildhibaanada laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ay yihiin kuwa sharciga ah ee ku metelaya gobolka Gado baarlamaanka 11aad maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu furay doorashada habraaca doorashada ay qabteen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed shahaadada rasmiga ah ee xildhibaanadana ay siiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal uuna taageeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah madaxa doorashada dadban ee 2022 sidaas daraadeedna aysan jirin meel lagu duro habraaca xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ugu dambeyntii guddoonku waxa uu ku talinayaa dadka walaalaha ah ee gobolka Gado degan ee xurgufta siyaasadeed ee soo kala dhaxgashay muddadii ay doorashada socotay in khilaafkooda wada hadal ay ku dhameystaan maadaama doorashadu ay dhamaatay waxaana warqadan ku saxiixan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe